جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa weli noo socda cashiradii ku saabsanayd beerteeda see ugu bedelaa ganacsi, beerteeda see uga dhigaa goob ganacsi. cashirkii koowaad waan soo qaadanay, si fiican baa kugu sharaxay. waxaan kusoo qaadanay 11 qodob. marka qodobadii ayaga ahaaba hoos horay kusoo inaan sii faahfaahino yaan isku daynaa insha allah. waxaa noo fududeeyey inaan maaragtay cashiradan iisoo gudbino shirkadda Bararo Fruit Empire oo gado miraha geedamireedka sida cambaha, saytuunka, afakaadhada. nambarkanaga insha allah waa nambarka meesha ku qoran. fadlan intaan cashirka u gudbin channelka subscribe samee, sidoo kale saaxiibada la wadaag qofkii doonaya inuu beeraha wax ka barto. insha allah cashiro si fiican loo diyaariyey yaa insha allah idin siin doonaa. kusoo dhawaado. cashirkeenii hore oo koowaad wuxuu ku saabsanaa sidee beerteeda uga dhigaa mid ganacsi. How to turn your farm into agribusiness venture ee English lagu dhahaa. 11 qodob oo soo sheegno waxaa ka mid ahaa qorsheynta beerta, habka beerta loo qorsheeyo. waxaa la dhahaa failing to plan is plan to fail. yacni inaad ku guul daraysato samaynta qorsho waxay ka dhigan tahay inaad qorshaysatay guul darro. qorsheynta beerta aad bay muhiim u tahay, faa'iidooyin badan bay leedahay, muhiimad badan bay leedahay. sababta aad beertan u aasaastay oo u gadatay oo maal ugu bixisay oo juhdi ugu bixisay maxaa waaye? waa su-aashaas bay kaaga jawaabaysaa. waa maxay sababta aad beerta u bilowday inaad maalgashato, inaad waqti geliso, inaad qarash geliso, inaad intaasoo dhan oo juhdi ku bixiso? sababtu maxay ahayd? sababtu inaad waxaa waaye number 1 wax soo saartaa, number 2 wax soo saarka waxa aad soo saartay inaad suuq geysaa, dadka ka gadaa oo adigu wax ka heshaa, familkaada ku biishaa, adiga nafsadaada wax ugu faa'iideysaa, wax ugu tartaa, ehelkaada wax ugu tartaa. marka muhiimadda qorshaha ay leedahay waa muhiimadaas. marka si aad u noqoto beeraley guuleystay oo aflaxay, beeryahankan wuu guuleystay ama ninkan beeraleyda hebel wuu guuleystay, si maxaa u noqotay? waa maxay wadada aad raacayso? wadada saxan oo raacayso waa wadadee? number 1 midda koowaad oo lagaa rabo maxaa waaye? beertaada waa inaad qorshaystaa. beertaada waa inaad u waxaysaa qorshe degan oo kuu qoran oo buug aad ku qortay. number 1 maalintaa beerta bilowday waxaa maskaxdaada kusoo dhacay waxyaalaha aad rabto inaad ku abuurto. 1 2 qorshahaas marka 2 u kala qaadaynaa sida hore uu soo sheegnay. qorshe dheer oo yool dheer ah. yool dheer waxa waaye long term goal iyo qorshe gaaban, horey waa uu soo sheegnay. marka qorshahaas waa inuu noqdaa mid yacni step by step, qodob kale qeexayo, wax walba qeexayo. waxaan rabaa waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas, inaad wax walba oo ka rabto beertaas inaad ku samayso, inaad qorto. laga bilaabo beerti qardaynteedii ilaa dalagga lagu abuurayay, ilaa xilliga lasoo goynayo, ilaa waqtiga ay ku qaadanayso. waxaasoo dhan waa inay ku qorantay iyo habkaad u waxayn lahayd iyo sidaa u kala horumarin lahayd. qorshaha dheer maxaa ku bilaabaynaa? qorshaha dheer oo kale kasoo qaad anoo kale haddaad beer weyn lahaan lahaa, ama 1 ekar ha noqoto, ama 3 hektar ha noqoto, ama 4 hektar ha noqoto, intay noqotaba number 1 beerteeda waa ina kala qaybiyaa. yoolka dheer maxaan siinayaa, yoolka gaabanna maxaan siinayaa. sidoo kale maxaa rabaa inaan ku wada kulmiyo? dadka qaarkood ninbaa wuxuu qorshaysanaya inuu sameeyo geedamireedka sida cambaha, muxuu ahaa waan soo sheegi doonaa, halkaan ku sharxi doonaa. mid kale wuxuu go-aansan karaa anigu waxba ma abuuraya geedamireed ma abuuraya, waxaan abuurayaa calafka xoolaha abuuraya. nin kale wuxuu dhahayaa maya, ani beerteyda waxaa rabaa inaan ku dhaqdo xoolaha, inaan ku xaraysto xoolaha, inaan xoolaha ku naahiyo.
waa ninka xoolaha naaxinaya marka waa inuu sameeyaa waa inuu abuuraa calafka xoolaha soo laba shaqo isku qabanaya asagoo calafka xoolaha abuuraya iyo asagoo sidoo kale xoolihii daajinaya beerta ku xareynaya mid kale wuxuu sameynayaa wuxuu dhahayaa beertan waxaan ku abuurayaa geeda mireedka sidoo kalena waxaan ku dhaqanayaa shinnida mix farming baa taas la dhahaa qof kale wuxuu dhahayaa ani beertayda waxaan abuurayaa dalagga kala duwan baa abuurayaa sida qudaarta kala duwan sidoo kale waxaan ku darayaa dhaqashada digaaga mid kale wuxuu dhahayaa beertayda digaagana waa ku dhaqayaa sidoo kale kalluunka waa ku xanaaneynayaa taasna waa insha allah waa ka hadli doonaa so waxaan ka hadlaynaa number 1 aan ku bilowno geeda mireedka waxaa go-aansatay inaad abuurto geeda mireedka kala duwan geeda mireedkaas kala duwan number 1 waa inuu yahay geedka abuuraysa geeda mireedkaas geedka abuuraysa geed baahidiisa ay joogto tahay oo aada loogu baahan yahay oo wax soo saar fiican leh oo waqtigu wax kusoo saaraya uu gaaban yahay oo muxuu ahaa sidoo kale geedka asaga ah hadduu deegaankaaga oo dhimaankiisa ama uu yar yahay gobolka kugu dhegan aada looga baahan yahay waxaa dooratay cambe inaa abuurto liin inaa abuurto liin macaan adduunka hadda waa isbedelay wax badan baa isbedelay inaad adduunka la socoto adduunka la jaanqaado waayo waxaad abuurtaa geedaha la dhaho grafted geedaha waqti cumri yar wax kugu soo saaraya 2 sano ya bar marka ugu dheeraata 3 sano geedkii la sugayay 7 sano 8 sano 15 sano oo laga yaabo sanadkii inuu sanadada sano mar dhalo maxaa geedkaas kala abuuray faa'iidada kugu jirta maxaa waaye marka waa inaad abuurtaa geed qaangaarkiisa uu gaaban yahay shirkadda Bararo waxay in fududeynaysaa geedahan oo la dhaho grafted baa la dhahaa waqtigooda uu gaaban yahay waxaad naga helaysaa asagoo 1 sano jiro waxaad helaysaa asagoo 8 bilood jiro waxaad helaysaa asagoo 4 bilood jiro waxaad helaysaa asagoo qaangaar ah oo 2 sano gaaray ama 2 sano iyo barka gaaray waxaa kamid ah cambaha kamid ah liin macaanta kamid ah sidoo kale waa inaad geedahaas laftirkooda isku dartaa hal mid ha dooran diversification waa inaad samaysaa waa inaad beertaada ku kala duwan tahay xilliga ay liinta kuu soo go-ayn waa inuu cambo kuu soo go-ayo xilliga cambaha kuu soo go-ayn waa inuu geed kale kuu soo go-ayo waa inaad beertaada cambe liin moos avocado maxaa la saytuun timir intaasba geedaha kala duugaa mid tookada maal midda kale bisha kale maal mid kale yacni beertaada xilli walba yaa wax laga weyn xilli walba waa inaad beertaada muxuu ahaa wax laga helaa wax ka soo go-aan saas baa beertaada uga dhigaysaa mid ganacsi ah laakiin haddii 3 bilood wax laga helayo haddana muxuu ahaa 9 bilood kadib ama 5 bilood kadib oo kale wax laga helayo taasoo kale ganacsi lama dhaho marka beertaada waa in bil walba sanadka dhammaantii wax laga goosanayo geedaha laftirkooda kala duwan mid waqti dheer mid waqti gaaban cambaha afakaadhada liinta saytuunka kuwa waqtiyada gaagaaban maxaa kamid ah waxaa kamid ah tufaaxa waxaa kaloo kamid ah babayga labadaas geed waxaa waaye sanadkii oo dhan bay baxayaan waxaa la helaa muxuu ahaa waxaa idiin haynaa geedo oo muxuu ahaa babay oo gaagaaban ayagoo halkan jira miraha aad ka guranayso ma fahamtid tufaax sidoo kale waa la helaa tufaaxa ayaa lagu dhihi dhulkiina tufaax kama baxo tufaaxa wuu ka baxaa weliba geed waxaa la helaa 1 mir geed 1 mir ku siinaya meeshuu 5 sano ku gaaro 1 mir waa xagee marka adduunka uu hormaray informationka beeraha ku saabsan raadi dadka warayso maxaa meeshaas ku fiican maxaana ku fiicnayn geedkee xilliga ku fiican geedkee ku fiicnayn xilligu geedkan iisoo go-aya muxuu ahaa geedkee kaloo ubax ii saarayo yani geedka xilliga iisoo go-ay geedkee kaloo iisoo go-aya muxuu ahaa xilligaas marka geedo kala duwan beertaada ku abuur si aad beertaada mid faa'iido leh mar walba aad wax ka soo hesho dhaqaale kaaga soo galo u noqoto mooska la kariyo mooska macaan mooska caadiga ah intaba waa inay beertaada ka baxaan cilado waa iska jiraan geedo waxaa jiro haddaad beerta ku abuurto kala daanyeerta ama koraha ama tuugo nafta kugu keenan halkeeda wax jiro waa jiraa so wax aan xal loo weynan ma jirto halkeeda waa jiraa dadka beeraha waxaa lagu xirtaa solar lagu xirtaa jirto koronto lagu xirtaa jirto number 2 haddaa u gudbo calafka xoolaha
waxaa kaloo beertaada long term yool dheer ka dhigan kartaa calafka xoolaha, cawsaska kala duwan. cawsaska kala duwan waxaa ka mid ah Sudan grass, Napier grass, Napier laftirkiisa. waxaa kaloo ka mid ah Bracharia cawska la dhaho. insha allah kuwaan oo dhan topic waxaa hadda ka hadlayo cashir walba oo ka hadlayo topic dhan oo cashir xiisad dhan oo full ah u waxayn doonaa mid walba ku sharaxaya cawsaska ugu wanaagsan oo gobolada Soomaalida u fiican oo Soomaalida anfacayo. waxaa ka mid ah number 1 Sudan grass, number 2 waxaa ka mid ah Super Napier cawska la dhahay Super Napier grass, Napier ma aha Super. waxaa ka mid ah Bracharia cawska la dhaho. waxaa ka mid ah mid la dhaho Alfalfa caws ma aha laakiin legume baa la dhahaa. groupka waxaa lagu tiriyaa digirta ama digirta familka digirtu ka mid ah caws ma aha, waa legume waaye. af Soomaali ahaan haddii aan dhahana aqaqar baan dhihi karaa, qofkii yaqaano aqaqar wuu yaqaanaa. alfalfa marka waxaa waaye aqaqar waaye. kuwan wuxuu kaga duwan yahay waxaa waaye proteinkiisa very high ah. hadda kan oo kale aqaqartoo kale proteinkiisa wuxuu noqonayaa 18%. marka alfalfa kale proteinkiisa very high waaye 18% ama more waaye, aad buu u badan yahay. marka xoolaha waxyaalaha cayiliya waxaa ka mid ah proteinka. neefka xoolaha haddaad u rabto inaad cayiliso ama inaad caanihiisa ay bataan, number 1 waxaa waaye proteinka ayaa ayaa cayiliya ama caanaha badiyo. proteinka laga fiiriyo content percentage-ka proteinka intuu leeyahay. wax alfalfa markii laga soo tagaa qarta, marka kan xoolaha looma badiyo, yacni xoogaa baa laga siiyaa, keligiisna lama siiyo. badanaa marka cawska aad siinayso kale yaad ku daraysaa. waxaa kaloo raacinaysaa oo kan ka agdhow cawska la dhahayo Super Napier. Super Napier waa caws maasha allah tankiisa aad u badan. beeraleyda Soomaalida waa kula talin lahaa inay abuuraan meel walbay joogaan. waxaa waaye number 1 horta waxaa waaye abaarta wuu adkeysan karaa, biyo la-aanta wuu adkeysan karaa. midoo kale waxaa waaye tankiisa, yacni waxa uu ku siinaya kg uu ku siinaya aad u badan. halkii ekar hectare kama hadlaya, halkii ekar waxay ku siinaysaa 200 oo tan. taas waxay u dhigantahay 200 oo kun oo kg uu ku siinayaa. sidoo kale cawskan laba nooc baa loo waxeeyaa. haddaad rabto silage baa u waxaynaysaa, haddaad rabtana hay baa u waxaynaysaa. hay waxaa la wadaa waxaa laga wadaa yacni cawska waad guraysaa, waad kaydinaysaa, asagoo waad qalajinaysaa. silage-na waxaa laga wadaa cawska waxaa waaye markii lasoo guro waa la shiidayaa, mashiin lagu shiidaa jiro. waa la shiidayaa, markii la shiido waxaa la sameynayaa meel god ah ama bac loogu talagalaa jirto oo dhulka la dhigayo. hab loo waxeeyo insha allah waa sharaxi doonaa. meeshaas baa lagu waxeynayaa. marka molasses iyo biyo la isku qasay yaa lagu darayaa cawskii oo jarjaran, kadib waa la aaburayaa. waxaa la rabaa cawskaas inuu qamiiro. markuu qamiiro cawskaas wuxuu soo saarayaa dalab aad u fiican oo caraf badan, oo caraftiisa xoolaha markii furka laga qaado ay indhaha inay ku dardaran ay ku siganayaan. waxaana yeelay bakteeriyada oo xoolaha caawiso inay maaragtay cuntada si fiican u dhageysta gareeyaan. dalabka xoolaha waxaa u diyaarin kartaa 3 nooc, asagoo ah hay oo la qalajiyo la duduubay ama store aad gelisay asagoo jarjaran asagoo xirmo u xiran. sidoo kale waxaa siin kartaa asagoo silage ah la qurmiyey la qamiiriyey yaa laga wadaa silage. waa la qamiiriyey, qamiirkaas xoolaha marka aad ugu fiican. number 3 asagoo laga waxeeyey pellet, yacni calafka xoolaha sida masagado kale waa shiidaysaa, waxaana ka waxaynaysaa wax la dhaho pellet oo yacni sida masagada, digirta, waxyaalaha kala duwan baa isku daraysaa. mashiin marka waxaa jirto ka dhigaysa waxyaalo jajab ah sida digaag oo kale la siiyaa, lo-oo kale la siiyaa, waa la isku shiiday. marka insha allah silage sida loo waxeeyo topic dhanba waxayna. haddaan u gudubno qaybta saddexaad waxaa waaye dhaqashada xoolaha la xareeyo, xanaanada xoolaha la xareeyo. yacni adduunka waa tagay, waxaa laga tagay xoolihii la daba raacayo, waqti lagu dhuminayo la daba socda oo faa'iidada lahayn. sanad walba xoolihii waa daba socotaa, ama meel baad meesha deegaankan baa abaar ka dhacday, deegaan kale xoolihii u waday, adiga faa'iide kama heshid, qarash baad ku bixinaysaa, shaqaalaad ku bixinaysaa. yacni wax faa'iido uu kugu joogo muxuu kuu leeyahay neefkaas xoolaha malaho. neefkaas weligii ma cayilayo, faa'iidada nama keenayo. awoyaashooda siday u dhaqmayeen bay Soomaalida u dhaqmaan.
noocaas waa nooc muxuu ahaa yacni waxaa la dhahaa reebaadiinimotii ugu dambeysay waay lama rabo saas xoolaha ka faa'iidayso ilaahay xoolaha wuxuu kuu siiyey inaad ka faa'iidayso oo ku noolaato oo ka noolaato ehelkaadana muxuu ahaa oo ku noolayso xoolaha ha caabudin oo xoolaha la caabudaya iska daayo xoolaha la caabudaya maxaa ka wadaa yacni qofkii neef buu ku daba dhimanayaa kama noolaanayo dad buu heblow lacag ay soo dadbuleeyey xoolana uu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu muxuu kaa taajirsan yahay 100 neef oo geel uu leeyahay waana ka gaajaysan yahay waxaasina xoolaa leeyahay maal baa leeyahay lama dhaho faqrinimo waa waxaas dhulku waa isbedelay dadkii xoolihii way xareeyeen caws baa loo abuuraa dalaga xoolaha loo abuuraa markii la xareeyo nin wuxuu u xareynayaa inuu xoolaha caydiyo nin kale wuxuu xareynayaa inuu xoolaha caana u kaydiyo soomaalida way bilaabeen maasha allah dad isbedelay baa jiro hadda muxuu ahaa gaaris oo kale kenya oo kale nairobi waa lagu sameeyaa dad geel oo kale hadda xareystaa jiro etoobiya in laga bilaabaa filayaa somaliland waa laga bilaabay soomaaliya laftirkeeda around muqdisho waa laga bilaabay marka dadkaas bilaabay maasha allah wuxuu ahaa waa dad horumarka adduunka la jaan qaadaya dhihi karaa beeraley isku diyaarisay siiba waxaa keenay dad dibadaha ka imaaday maasha allah dad fikrad fiican la imaaday marka xoolahaas aad muxuu ahaa cayinanayso lo-da ayaa ka mid ah ariga ka mid ah idaha ka mid ah lo-da geela ka mid ah sidoo kale waxaa jira ariga caanaha lo-da caanaha geela caanaha believe me aaminha ama hay aaminin waxaa jiro ari laga lisi karo maalintii aad ka lisayso 3 ilaa 8 litir 3 ariga caanaha la dhahaa maalintii wuxuu siin karaa haddaad nafaqayso oo nafaqo fiican siiso 3 litir ilaa 6 litir haddaad si fiican neefkaas ugu dadaasho bariid fiican doorato waxaa laga yaabaa inaad xataa gaarsiiso 8 litir maalintii wayna dhacdaa kenya waa laga helaa adduunka dhan waa laga helaa dairy goods aan lahaa xogteeda haddaad rabto insha allah muxuu ahaa nambaradana nala soo xiriir sidoo kale lo-da caanaha qof walba u yaqaan lo-da caanaha adduunka waxa ugu badan oo la konsuum garay waa caanaha lo-da caanaha waa muxuu ahaa 20 litir ilaa 30 litir ilaa 40 litir baa maalintii laga helaa geela caanaha geeleyna haddii la dhaqaaleeyo oo maaragtay nacfi fiican la siiyo dalag fiican la siiyo waxaa laga yaabaa ilaa xataa inuu ku siiyo 10 litir 8 litir laakiin geel maanta dhan iska socdo oo la daba joogo oo maanta dhan wareegaya neefka wuu daalayaa energy uu ku soo saari lahaa caanaha wuxuu ku bixinayaa yacni socod neefka markii la xareeyo qofka xoolaha dhaqdaa yaqaano intuu soo saaray 2 jibaarkii ama 3 jibaarkiisu soo saaraa qof kale wuxuu go'aansanaya inuu beertiisa uu ku xareeyo digaaga inuu dhaqo digaaga waxaa u kala qaadaynaa digaaga insha allah 2 qaybood digaaga ukunta iyo digaaga hilibka ma digaag hilib baa rabtaa ma digaaga ukun baa rabtaa waa lasii kala qaaday marka digaaga la bacrimiyo iyo digaaga la hormariyey ee deegaanka waxaa waaye kenyeji ama local improved lahaa waxaa la sameeyey digaagii localka ama deegaanka ahaa yaa la isku keenay waxaa laga soo bixiyey digaag muxuu ahaa dhalmo badan ama hilib badan ama hilib miisaan leh yaa laga soo bixiyey marka digaaga markaan kala qaadno waxaan dhahnay waa 2 nooc midka hilibka iyo midka ukunta midka ukunta 2 nooc waaye asagoo la bacrimiyey iyo asagoo aan bacrimisanayn midka la bacrimiyey waxaa laga yaabaa inuu ku siiyo bishii oo dhan inuu 28 beri uu ku dhalay maalin walba ukun ku dhalay laakiin kan deegaanka waxaa la gaarsiiyey markii la hormariyey oo la bedelay oo jiinkiisa wax laga bedelay yacni yaa wuxuu ku siin karaa bishii 26 25 22 ukumood buu ku siyaa laga yaabaa sidoo kale waxaa jiro asagoo kale oo asna muxuu ahaa oo burburan oo waaweyn oo aad sidoo kale u isticmaali karto hilib ahaan loo isticmaalo marka waxaa waaye kaas haddaan ka gudubno qofka wuxuu go'aansanayaa inuu xanaanaysto ama dhaqdo shinnida dhaqashada shinnida oo kale sidaan ka hadalnay waxaad samayn kartaa beer u gooni ah shinnida bes ah beertaas waxay noqon kartaa mid hawd ah meel hawd ku taalo oo dhir leh oo kayn ah ama waxay noqonaysaa mid beertaada ku taala geedaha khudradda kala duwan laakiin beertaada mid ku taala haddaad rabto inaad shinni ku dhaqdo number 1 waa inaad ka fogaataa buufinta sunta beeraha lagu buufiyo inaad ka fogaataa sababtoo ah shinnidu waxay aadaysaa waa ubaxi geedaha beertaada ka baxay hadday geed sumaysan u tagto oo ay kasoo qaado muxuu ahaa
ay habaaska ka soo qaado. hadday habaas ka soo qaado, habaaska shinnida malabka bay ku waxaynaysaa. malabka marka ku waxayso dadkii bay sumaynaysaa. marka waa inaad ka digtoonaataa beertaada. haddii aad buufinayso oo sun lagu buufinayo, waa inaadan shinni ku dhaqan, dadkaa sumaynaysaa. haddii kale beertaada dad baa wuxuu go'aansanaya inuu beertiisa u abuuro shinni uu ku beero, laakiin uu abuuro geedaha ubaxa. maxaa ka mid ah geedaha ubaxa? waxaad ku abuuraysaa sisin oo kale, way ku bacriminaysaa sisinto kale. waxaa ka mid oo kale sunflower, geedka sunflowerka la dhahayo, gabaldayaha oo kale ayaa ku abuuraysaa. waxaa kaloo samaynaysaa inaad beertaada ku abuurto kale muxuu la dhahaa chia seed, geed chia seeds la dhahayo, oo asagana u fiican, ubax badan buu leeyahay oo soo jiidanaya shinnida, uuna caraf badan yahay. marka geedo badan oo loo abuuraa jiro. xanaanada shinnida faa'iidooyin badan bay leedahay. haddaan naqaan anagu waxaan naqaanaa malab bas ina leedahay. malabku mar walba waa qaali, adduunka dhan buu qaali kaya uu ku yaryahay. marka malab baa u dhaqan kartaa oo malab baa ku soo saari kartaa. sidoo kale habaaska waxaa la dhahaa nectar oo kalaa soo saaranaysaa oo shinnida lasii quudiyaa. waxaa kaloo laga soo saaraa xanjada oo waxyaalo badan laga waxeeyo. xanjada waxaa laga waxeeyaa waxyaalaha maarata cosmetiga laga waxeeyaa, oo saabuunada loo isticmaalaa. marka xanjada ka soo saari kartaa. cunto boqoradeed baa ka soo saari kartaa. actually cunto boqoradeedka adduunka waxyaalaha ugu qaalisan bay ka mid tahay oo shinnida laga helo oo laga soo saaro. sidoo kale waxaa ka soo saari kartaa big bread wax la ama gooska. shinnida ninkii shinni yaqaano oo malab soo goostay, waxaa jirta bahal badabada asagoo dhan baa yellow ah, jaallo ah, oo goos la dhaho. marka kaasoo kale asagana shinnida lagu quudiyaa. xilliga abaarta oo kale la quudiyaa, waa laga soo qaadaa, meel baa loo dhigaa, waa lagu quudiyaa asaga iyo habaaska. marka insha allah shinnida waxaa u sameynaynaa topic dhan. topigaasa marka shinnida qaabka loo dhaqdo, qaabka uu kala baxdo, habka ugu wanaagsan yaa ku sharxi doona insha allah biidnillah, oo casharada noo soo socda. midda ugu dambeyso waxaa waaye dhaqashada kalluunka. waxaa qofka wuxuu go'aansanayaa inuu dhaqdo kalluunka. sidee qof ku dhaqan kara kalluunka? gobollo waxaa jira aan lahayn muxuu ahaa bado. haddaa bad lahayn oo webi lahayn, maxaa xal ah? dadkiina kalluun way u baahan yihin. kalluunkana waa muxuu aha aad u fiican yahay, protein badan yahay, maskaxdu kordhiyaa, daawona muxuu aha faa'iidooyinkiisa halkan kuma soo koobi karo. marka waxaa jirto waxa la dhaho fish pond. waxaad waxaynaysaa wara lagu dhaqo muxuu ahaa malayga ama kalluunka lagu dhaqo. warahaas hab loo waxeeyaa jiro, qaab loo muxuu aha loo dhiso, waxyaalo lagu isticmaalo, cunto la siiyo kalluunka. waxaasoo dhan insha allah asagana maxaa kusoo qaadanaynaa topic dhan baa kusoo qaadanaynaa. muxuu ahaa wadamada hadda muxuu aha kalluunka lagu dhaqi kara, beeraha kalluunka lagu dhaqa muxuu aha aad ugu baahan. waxaa kamid ah north eastern oo kale, gobolka north eastern Soomaaliya oo kale, Uganda oo kale kamid ah, inkastoo ayadana meel xoolo yara beera ay leedahay. waxaa kamid ah Ethiopia, Soomaalida tagta jigjiga muxuu aha rawd Ethiopia aad bay uga faa'iideysan karaan. halka Nairobi oo kale kalluunka expensive waaye. badanaa kalluunka la keenana waxaa waaye waa kalluunka lagu dhaqdo beeraha la xanaaneeyo. kiilada waxaa waaye $4, $4. imagine. so marka faa'iidooyin badan bay leedahay. wax walba oo aan soo sheegay, mid walba faa'iido iyo profit buu leeyahay. marka waa inaad barataa habka loo waxeeyo, habka loo dhaqo insha allah biidnillah. waana insha allah waxaan isku dayaynaa inta karaanka ah inaan cashiradooda inka kaafino inta awooddanada ah. wixii su-aale uga baahantihiin waana soo weydiin kartiin. wixii tala ah waana soo weydiin kartiin. ha la cabsanino, wixii talooyinana waraysto insha allah. wixii aan karaanka ahayna waxaan ku xirannahay group beeraley isku xirannahay, iyo rag beeraha ku takhasusay, hadda takhaatiir ah oo beeraha qayb walba kaga takhasusay. hadday xagga xoolaha tahay oo isku jira takhaatiir oo Kenyaan ah iyo kuwa Soomaali isku jiro insha allah. marka wix walba oo dhibaato oo ku haysto nala soo wadaag. hadday cudur tahay, haddii ay tala tahay, wax walba insha allah inta karaanka ah waa isku daynaa maaragtay inaan maaragtay insha allah in kaga jawaabno oo sida ugu dhaqsaha leh maaragtay idin caawino. mar walba waxaa rabnaa dadka beeraleyda Soomaaliyeed inay horumaraan, inay adduunka la jaan qaadaan, inay beerahooda u bedelaan mid ganacsi, inayna noqon maaragtay kuwa beeraha u fashay sidii muxuu ahaa awoowayaasheen oo kale. waxaan rabnaa habka casriga inaan maaragtay beeraha muxuu ahaa u falano, u dhaqano, u abuurano, xoolaha u dhaqano, sidoo kale adduunka ula jaan qaadno mechanize wal aan la socono. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay ha nagu anfaco.
فبها نلقى أحمد والصحب وشوقا لنظرة ربي.